Kani waa barnaamijka taxanaha ee TikTok ee ka baxa warbaahinta Hogol News. Bismillahir Rahmanir Rahiim waa hooyadin waana badan iyo mar saddexaad caruurtayda dhageysta wiilasha ka shineed wiilasha waray dhageyso adaa mas'uul wax badan aan ku iri wax badan baan ku iri adaa mas'uul wariya gabadha markay walaca tahay ilaali markay uurka tahay xaamilada weyn tahay ilaali markay caadada ku dhacday ilaali beeshin male jirkeedu wuu wada danqanayaa waa isku soo taagtay walaasha ninkaas haduu xumeeyo waxa leedahay ninkan hooyo adaa iga cilcilnaay ma ogi ninkaanito gabadheena warqadeedan ka qaadan lahaa bababa adi ma ogtaa wiilkan kalo gabadhan kalood qabtid walaalkeed inuu saas u soo baxsanaa horta ma ogtaa nin lagu seexdo waa seexan waa jiiftaaye wake up riya kacwaa hurudaay kac sida adiga dareemaysid buu dareemayaa gabadha walaalkeed kacbaan ku iri Bismillahir Rahmanir Rahiim waa hooyadin waana badan iyo mar labaad caruurtayda qaaliga si fiican iyo maqla si fiican siiba wiilasha dhageyso wariyaa dhageyso wiilka Soomaaliyeed waxaad rabtaa walaasha insa loo dhooliyo sidii maxaa laayay dhala dahabe yaa gabadha qabtin waxaadana dhulka ku jiidid yaa nin waxa la yiri dhala ku jira dhagax ma tuuro waan idin sheegay hooyo waana la yiri mahmaada waaba khatarbo ma garatay maxaa laga wadaa adi walaasha waxa artaa inuu ninkeeda romantic u noqdo adigana waxa artaa in abaal soo taagan noqotid wariyaa hadaa rabto walaasha iyo hooyada inay nolol ku noolaadaan gabadhaanbo wiil bay la dhalatay hooya soo dhashay wanaaji bariidaduba waasada nin bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tagay sama kuma banaano sinaydin kuma banaano Bismillahir Rahmanir Rahiim waa hooyadin waana iyo mar labaad qurbaa horta dhibaa yaalo wiilkii hadii la dhaho caawi wuxuu ku dhii hooyada yaa caawin jira war hooyada xagee joogta hooyada Soomaaliya joogta markay umushadada loo keenay yaa shaqaale helaysa qurbay joogta 2 mitir ku jirtaa أفاتاي واسحة هوي حق ما حق هلا فيريو حق ما أوف متاي دابا جاب حري هاني فديسو قرق الليف أنكو ده الليف هذا هذا ولا ما شاء الله أنا واد بيجا في عنده ساعة عمل هذا وريا قبضو قلبي قبضا فرو هذا وامح وين هذا عاوز ياها هذا قعنا ذاك تهي ويكون صبري هذا كعن فرنتهاي ويكون صبري نفهمتي قبل عاوي كعمش بسم الله الرحمن الرحيم وهو يدين وانا بدن إيا مرلبات هو يدين وانا بدن هداي لا هذا شيء قبلها هذا أنا ويلو إما قل هوي معن دقاق سفي عن إيسي ويلو قبلها نيجري دقاق إيسي ما أنت واضي دقاق إيسي هوي معاني وقبر ويكولا دلت وين كل الشيء hooyada macaan ma rabtid iska daa nin kale aabii ku dhalay inuu hooyada fiiriyo ma rabtid walaasha ma rabtid ninka qaba inuu fiiriyo adigana xaaska qabto waa jiide ittaqillah hooyo macaane nin dhala ku jira dhagax ma tuuro gabardooda hadaa halaysid walaashaaba haleynaya ugu gabardooda wadaad ma aragto godob ka gashid walaashaaba laga gelayaa ugu marka fakar wiilka Soomaaliyeed hay'adan xafiida meel walba joogtiin guriga Allah noo aslaxiyo fakara Bismillahir Rahmanir Rahiim waa hooyadin waana badan iyo waanadeedii caruurtayda qaaliga sayidteen ma ii fiicantiin Allah idin fiicneeyo meel walba joogtiin hooyo macaan gabadhayda may maqlaysaa gabdhaha Soomaaliyeed way maqla si fiican hooyo macalinka koobaad waa adiga dhakhtarka koobaad waa adiga hooyadan la hadlayaa gabadha hooyade baa la hadlayaa cunugaaga xaaladiisa ku jiran yahay markuu fiyow yahay markuu dharagsan yahay markuu ma aragtay quraanka gaaro mar walba waa macalinka guriga dhakhtarka guriga mar walba waa adiga hooyo caafimaad la ilma korsatee caafimaad la ku siiyo maskaxda ha mashquulin biyaha cabsan ku sheegay caafimaadkaada ka fakar eerli seexo ilmahaada kumitid mashquul kale hadaa gashid awlaada wadi loobaysaa
awlaadaada korso dhaxda bismillaahir rahmaanir rahiim waa hooyadin waana badan iyo mar saddexaad caruurteyda qaaliga Allah idin xifdiyo meel walba joogteen gabdhow hooyo macaan gaagaan bisoy guri waa haween adduunyada waa haween nin doonaba ha hadlo adduunyada waa haween ninkii doonaba ha iska hadlo midaa la iskuma hayo hooyo macaan adaa hooyee adaa gabadhie adaa dahab iyo dheemane adaa macalinka guriga adaa macalin waa ninkii caruurtabo hooyo macaan allaha kula jiro allah idinla wada jiro hooyo waan idin duceynayaa dhago oo dhagta u dhaadhici Hogol News